war farxad leh oo ka yimid dhanka Turkiga waxa uu sheegayaa in qorshaha shidaal qodista Soomaaliya uu si toos ah u bilaabanayo dhawaan iyadoona markabkii Turkiga uu soo diray Soomaaliya uu ku soo wajahan yahay dhanka iyo xeebaha Soomaaliya waxa soo dhawaaday waqtigii loogu talagalay in qodista shidaalka Soomaaliya laga faa'iideysto iyadoona bishan bilowga ah Abriil 2020 la soo saarayo sida lagu sheegay warbixin dawladda Turkiga ay soo saartay bishii Maarso ee dhawaan ina weedaaratay ayaa waxay dawladda Turkiga sheegtay in xilligan la joogo ay tahay fursad weyn oo Ankara ay doonayso inay ka faa'iideyso taas oo keenaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha Turkidu ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qodista shidaalka Soomaaliya si loo gaaro hadafka siyaasadeed ee la xiriira dhanka qodistaasi shidaalka sargaal soo ka tirsan dawladda Turkiga ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in ay socdaan abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyadoona dawladda Turkiga ay bilowday sidii ay u raadin lahayd xogaha iyo macluumaadka la xiriira sahanka shidaalka Soomaaliya sida ay sheegeen mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda Turkiga ka tirsan badda madow iyo xeebaha Soomaaliya waa meelaha laga baarayo shidaalka sidoo kale laga soo saarayo iyadoona markabka lagu magac daray curad kow uu sameeyo dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay meel ka baxsan biyaha Turkiga taas oo uu ku gaarayo hadafka ah in la soo saaro shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee ku jira gudaha Soomaaliya oo helaysa shidaalkii ugu fiicnaa marka la eego dalalka kala duwan ee caalamka ayaa waxa ay keentay in wadamada qaarkood ay ku dhiiradaan sidii ay ku garab istaagi lahaayeen xilligan xaaladaha iyo duruufaha adag ee Soomaaliya ka soo kabanayso si ay mustaqbalka ugu helaan waji iyo in ay ka soo dhawaadaan marka la eego dhaqdhaqaaqyada guud ee arrimahaasi la xiriira ila kala duwan ayaa dhanka kale waxa inoo sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira sida dawladda Turkiga ay u raadinayso abaabulkaasi si loo gaaro hadaf siyaasadeedka la xiriira in maraakiibta Turkiga ay diiradda saaraan sidii guud ahaan loo soo saari lahaa shidaalka waxaana ceelashii sahankii lagu sameeyay la sheegay in laga soo baarayo shidaalka guud ee ku aadan in ay Soomaaliya ka faa'iideysato waqtigan la jooga dawladda Turkiga waxay qorsheynaysaa Abriishan lagu jiro waa 2020 in ay soo saarto shidaalkan oo faa'iido weyn u ah marka la eego dhanka Soomaaliya wasiirka tamarta Turkiga Albarsam Bayraktar waxa uu sheegay in markabka shidaalka qodista ku bilaabi doona ceelka curad 1 ama curadka koobaad oo ku yaal meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya isagoona tilmaamay in dawladdiisu ay ka go'an tahay Turkiga ayaa sanadkan ku soo kordhiyay maraakiibta qodista kuwa kala duwan oo ay ka mid yihiin Yildimis iyo sidoo kale Gagibay taas oo ka dhigaysa tirada maraakiibta qodista in Soomaaliya ay gaarayaan ilaa 6 kuwaas oo wata ilaalo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay in laga hortago cadow walba oo isku daya in uu hor istaago xeelka shidaal ee Soomaaliya la qodiya markabka waxa uu qodi doonaa meel gaaraya ama mool god weyn oo gaaraya ilaa 12,000 oo mitir dhererkiisuna waa 228 mitir dhanka kalena Gagibay waxa uu u ambabaxay Soomaaliya bishii February 2020 wuxuuna qodista ka bilaabi doonaa goobihii uu horay u soo sahmiyay markabka Orekresh Gagibay wuxuu noqonayaa markabkii ugu horeeyay ee qodista Turkiga leeyahay ee ka howlgala meel ka baxsan dalkaas sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladdaasi dadaalada Turkiga waxa uu udub dhaxaad u yahay goobta gaaska ee Sakarya halkaas oo sanadkii 2020 laga helay waa dadaalada Turkiga wuxuu udub dhaxaad u yahay goobta gaaska ee la yiraahdo Sakarya halkaas oo sanadkii 2020 laga helay keedkii gaas ee ugu weynaa taariikhda dalka 720 bilyan oo litir kuyubiga ama mitir kuyubiga markabka Fatih oo ah
markabkii ugu horeeyay ee qodista ee Turkiga ee soo saara shidaalka ayaa hadda waxa uu ka shaqeynaya dhanka iyo badda madow isagoo si gaar ah diiradda u saari doona wasiirka tamarta iyo macdanta batroolka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in tani ay fursad weyn u tahay Soomaaliya isagoona tilmaamay in muddo dheer la fuulinayay in la qodo shidaalka dalka taas oo keenaysa in mas'uuliyiinta dowladda federaalka ay gaaraan hadafka ku aadan in la soo saaro shidaalka Soomaaliya wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tala xigta ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka la xiriira siyaasadda iyo qoyska shidaalka Soomaaliya oo inta badan diiradda aan saari doono halkan kala soco si aad u hesho rukumo waad ku maasan tahay daawashada la socodka wararkayga